أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد، ويرفع رايتها من جديد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. muslimiinta dhammaantood waa salaamay dhegeysanaya. waxaan ilaahay weydiisanaa subxaana wa tacaala dambi dhaaf iyo raxmadiisa inuuna siiyo dhammaanteen. waxaa golaha imaamiyada ee waqooyiga Mareykanka loola yaqaan NACSI, North America Council of Somali Imams. golaha imaamiyada waxaa la aasaasay 2001kii ayaa la aasaasay. waxaa la aasaasay dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee laga keenay xeryaha qaxootiga ee bariga Afrika ama meelaha kala gedisan ee caalamka ee lagu soo daadiyay Mareykanka markii ay arkeen culimada in ay dadka u baahan yihiin in la badbaadiyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii in la badbaadiyo ayay asaaseen golahaas. waxaa lagu asaasay magaalada Columbus ee state Ohio. waxaa asaasay dad culimo isu tagay nukhba culimo oo ka mid yihiin Sheekh Maxamed Idriis, aniga aan ka mid ahay, Sheekh Bashiir Jaamac, Sheekh Ibrahim Maxamed, ragga culimo fara badan, Sheekh Abdisaaq Xaashi, Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi, Sheekh Bashiir Jaamac, ragga culimo oo dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed la socday ama la yimid gadaashood yimid ayaa go'aanka gaaray inay dhisaan golaha muxuu qabanayaa ikhwaani? golaha wuxuu ahaa bal ummadan horta marka u horeyso caruurta leh, haweenka leh, maatada leh in la helo masaajid maraakiz ayaga ay leeyihiin in la helo, oo runtii gool aad u adag ahaa. dhaqaale aan loo haynin maaragtay dad dhaqaale leh xataa dadku qaxooti iyo dad welfare qaatay u badnaayeen. arrinkaas alxamdulillaah waxaa lagu daadiyay dadka kontonka state ee Mareykanka. intii ay u badnaayeen, meelihii ay u badnaayeen ayaa markaa waxaa la go'aansaday markii horeysa dacwadii iyo quraankii barashadiisii iyo meeshii ay isugu imaan lahayd marka hore in kira laga dhigo oo la kireeyo, kadibna laga shaqeeyo sidii maraakiz ayaga ay leeyihiin loo dhisi lahaa. alxamdulillaah ilaahay fadligii juhdi aad u tiro badan iyo dadaal fara badan iyo wax badan oo orod ah iyo ururin maaragtay shilin u geey waxaa ilaahay subxaana wa tacaala suurtageliyay maanta in golaha uu ku guuleysto in maanta ilaa 25 state ay leeyihiin Soomaalida maraakiz ayaga ay leeyihiin oo meelaha qaarkood ay wax ku bartaan, yacni weekendiga ama sabtiga xadda 1000 wax ka badan dad ah oo leh caruur, oo leh hooyooyin, oo odayaal leh, dhalinyaro leh, oo macaahid ka dhisan tahay, oo dadku ay ku soo hirtaan, oo lagu xalliyo qoysaska mashaakilkooda, oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhaxdhaca dadka ganacsiga hadduu noqdo iyo dhibaatada dadka is haysto. meel uu ku soo hirta ninka ka imaanayo qaxootiga oo Mareykanka loo soo kaxaynayo ayaa ilaahay siiyay subxaana wa tacaala. waxaa intaas sii dheer dacwada iyo quraanka iyo diinta barideeda. maanta alxamdulillaah ilmihii ku dhashay Mareykanka ilaahay fadligii subxaana wa tacaala waxay dhameeyeen quraanka oo ay xifdiyeen. waana aragteen saan filayo dadaalka majliska ayaa bacda Allah subxaana wa tacaala ku yimid iyo midnimada iyo isqabshada iyo walnimada dadaalka ay sameeyeen golaha
oo ilaahay subxaanahu watacaala dartii u walaalooba ilaahay dartii isugu yimid waxaan insha allah marxaladii ta'siiska waa ka baxnay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan tadwiir iyo horumarin in la galo oo dadka qualitygooda masaajidda waxa loo dhisay waa dadka in dadka aan xooggeena isugu geyno culummada inaan isugu geyno in dadka la bara diintii in la ilaaliyo caqiidadoodii inay noqdaan dad muslimiin oo miisaaman oo iska celin kara bay'ada aan islaamka ahayn iyo fitanteeda iyo gaalnimadeeda iyo fasaadkeeda waa hawl aad u weyn hawshaas waxaan idinka rabnaa insha allah dadka muslimiinta dhammaantood markuu horeyso midnimadaas inaad garab siisaan oo aan midnimadaas Soomaalidu waxay jecel yihiin in wax dumiyaan ay jecel yihiin wax dhisan oo meel yaal in dumiyaan ay jecel yihiin laakiin wax ma dhisaan marka in yani dallada la arsanayo inaad ilaalinteedii ka qayb qaadataan oo aadan ka qayb qaadan in duminteeda ama fadqalaynteeda inaadan ka qayb qaadan insha Allah taala mana ka qayb qaadan suurtagal lamaba aha insha Allah taala oo qofka u socdaad gacanta qabataan tiraadaan hanaga dumin gurigan anaga harsanayne guriga Soomaaliya la soo dumiyay gurigan hanaga duminin qaxootiyaanahay waa harsanayna noo dhaafina tiraadaan taa waxa ku xog in la dacmiyo xagga dhaqaalaha in la kaalmeeyo waa dacwadii iyo hawshii iyo aymadii iyo in loo firaaqay dad culimo ah oo dadka wax baro in loo firaaqayo la helo haddaan la helin dad culimo ah oo dadka u firaaqa oo iyagu aan business aadayn oo iyaga aan shaqo kala aadaynin oo dadka diinta bar haddaan la helin dadka ma baran kara diinta الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد marka aan ka hadlayno taariikhdii bilowga golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee waqooyiga America waxay xusuustaas inagu dhalinaysaa inaan dib ugu noqono 1999kii iyo 2000 sanadku markuu ahaa jaaliyadaha Soomaalidu ee Mareykanka ku soo bateen masaajiduna ay bilaabatay waxaan dareenay markii aynu wadnay hawlaha masaajidda iyo dhismahooda inaan u baahanahay iskaashi sababtoo ah masjid walba oo la dhisayo waxaan u mari jirnay gobolada inaan tagno masjid Abu Bakar oo mesela Minneapolis in gobolada dhan loo maro marka la joogo masjid As-Sunnah Atlanta inaan gobolada u marno marka arrinkaas wuxuu keenay inaanu dareeno baahi inay jirto in iskaashi la sameeyo oo markaykistaas la isku xiro oo ay yeeshaan wada shaqayn iyo iska warqab iyo qorshe inay yeeshaan ay masaajidoodana ku dhisaan iskuulada ku habaystaan masaajid kale cusub iyo gobolada Soomaalidu ay u baahan tahay ama ay soo degto laga sameeyo taas ayay ku bilaabatay fikraddu rag imaamiyada ahaa ee markaas goboladaas joogay ayaanu kulamo isugu nimi markii hore magaca North America wuxuu ka yimi waxaan rabnay Canada iyo Mareykanka labadaba inaanu masaajidda ducaadana Soomaaliyeed ay hayaan aanu isugu keenno walidaalika shirarkii u horeeyay oo aanu ku qabanay magaalada Columbus Ohio iyo magaalada Seattle Washington waxaa nagala soo qayb galay qaar ka mid ah maraakista Canada oo uu ka mid yahay masjidka Khalid ibn al-Walid Toronto ku yaal laakiin waxa dhacay September 11 2001 anagoo wali qaban qaabadii wadnaha oo dhowr shir qabanay aan ugu gogol xaareyno sidaan u samaysan lahayn golo isu tag baahida keentayna waxay ahayd camalkan dacawiga ah wuxuu u baahan yahay iskaashi masaajidda dhismahoodu wuxuu u baahan yahay iskaashi iyo iska warqab iyo qorshe taasuna kuma suurtoobayso ilaa in juhuudda la midayo oo camalka la isu geeyo mooyaan waxa kale oo aan ka faa'iideysanay annagoo hadda asal ahaan islaamku nafarayo isu tagga iyo wadajirka iyo wada shaqaynta iyo xoogga isu geyntiisa oo aanu ka duuleynay midnimada uu nafarayo islaamku ayaa haddana tajrubada aanu ugu nimi ama experience-ga aanu ugu nimi dalkan ama Mareykanka ama North America uu ku dhisan yahay wax wada qabsi xataa shirkadaha businessyada iyo tijaaradaha waxa culture-ka ka jira ama dawladdan Mareykanka iyo dalkan uu ku dhisan yahay waxa way iskaashi iyo wada qabsi iyo unity isu tagid
oo dalkaaba ku dhisan marka taasuna waxayna siisay khibrad gaar ah waxa aanu qaban karno haddaan xoog iyaga isu geyno taas ayaa waxay keentay marka inuu dhasho 2001 si rasmi ah golaha imaamyada Soomaaliyeed ee waqooyiga America ilaa 6 markas baa markii hore xubna ka ahaa markii sanadkii xigana ilaa 8 markas bay noqdeen halkaas bay ka soo bilaabatay marka in hadba markas lagu duulo oo la dhiso oo la isugu tago shirar sanadkiina 4 shir taqriiban maadaama aanu koobnayn aanu qabsano oo 3 biloodba gobol kamid ah goboladaas aanu ku shirno markaskii ugu horeeyay oo markaas aanu deesi lacagtiisa la wada bixiyo oo aanu ku guuleysnay wuxuu ahaa masjidka Atlanta masjid sunna taariikh ahaan 99 ayaanuna ilaahay noo suurta galiyay in marka laga dhigo bay off oo lacagtiisa la bixiyo kadibna masaajidii kale ayaa ka daba yimi oo sida San Diego sida Seattle sida Ohio Columbus sida Lewiston Maine sida Nashville Tennessee sida Kansas City meelahaas oo dhan maraakisteedii alxamdulillah sanadihii u horeeyay ayaa majlisku ku guuleystay inuu qabto waxaan dhihi karaa tajribada majlisul a'imma ama golaha imaamyada Soomaaliyeed waa yani tajribo ku cusub runtii wax wada qabsiga ummadda Soomaaliyeed role modelna u ah ama tusaale wanaagsan oo qudwa ah dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inay wax wada qabsan karto meelo badan baan adduunka ka maray oo dacwo ahaan u maray Yurub iyo Afrika mana aanan arag tajribadan golaha imaamyada ee soo socotay 12 sano sidaas wax wada qabsada oo sidaa wax wada qorsheeya injaazaad iyo waxyaalo la fuliyay iyo guulo laga gaaray inta leegna ay ka dhashaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiis majlisku marka waxaan leeyahay waa tajrubo aad iyo aad u wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo amalkaasna wuxuu keenay in meelaha kale sida Yurub iyo Afrikaba ducaada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay kaga daydaan golaha imaamiyada oo noqdo tusaale qudwa oo laga daydo wax wada qabsiga waxaan filayaa walaalahay inay ka sheekeeyeen ama maaragtay Xuseen waxyaalaha markasku qabtay xagga arrimaha bulshada xagga tacliinta xagga dacwada xagga gargaarka ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan markii abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo ay dhacaan ama duufaanaha ay dhacaan sidoo kale u gargaaridda culimadii Soomaaliyeed agoontooda daryeelka dadka ducaada ah arrimahaas oo dhan kaalinta weyn ee majliska Ilaahay subhanahu wa ta'ala ama golaha imaamiyada oo Ilaahay ugu suurta galiyay dadka Soomaaliyeed ilaa hadana waxaan dhihi karaa waa tajrubada ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed wax wada qabsigooda iyo isu tagooda u muujinaysa ummadda iyo ummadaha kale taba sida dadku ay wax wada qabsan karaan iyagoo dad muslimiin ah oo xoogooda isu geeya maanta wax allaale iyo wixii qadiya ah oo soo wajaha ummadan Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga America ama se caalamkaba golaha imaamiyadu 22 markas oo 15 gobol oo Mareykanka ah ka dhisan inuu isla markiiba ay ka kici karto 100,000 oo Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin juhdiga inta la isu geeyo oo hal mar u dhaqaaqo waxaan isleeyahay waa mid xaqiijinaysa ama sugaysa sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu suurta galiyay inaan xaqiijino wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu Ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkaas uu nasiyay iyo بعد ذلك تجارب بني آدم أن كفى إلى سنبه وحين نسور تجري عمل كاس عمل مباركة وإلهي سبحانه وتعالى بركي وحبض المسلمين إلهي وقومي كنا بدبادية إنه نقضه قالها إمامية الصوماليين وحن رجينا يا إلهي إذا كيس أنت يا إنك بدن با إنه إن شاء الله تعالى مستقبل كانوا حقيقي دونه ummadda muslimka ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta oo waxtar weyn u yeelan doono sida uu hadaba ugu leeyahay inta in ka sii badan ilaa hadda muslimiintu wayna soo dugsadaan carabta ha noqdaan afrikaanka kale oo muslimiinta ha noqdaan qeyrkood Mareykanka ha noqdaan way soo dugsadaan majlisku wuxuu u yahay meel ay maaragtay markii ay dan leeyihiin ama arrimo ay haystaan ama dhibaatooyin ay haysato ay
kula soo ordaan oo ugu yimaadaan wax fiicanna kala qabta ilaahay fadligiis marka taasuna waa sharaf dadka Soomaaliyeed xaqiiqatan iyo jaaliyada Soomaaliyeed si gaar ah ugu soo hoyatay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ku xaqiijiyay gacanta golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa camalkan inuu khaalisan liwajhihi ilaahay uu ka dhigo sacyiganana ilaahay subxaanahu wa ta'ala sacyi mashkuura ilaahay ka dhigo waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah oo maanta la taaban karo oo muuqda kow inuu mideeyey dacwadii ka socotay gobolada oo dhan inuu mideeyey oo seebuu u mideeyey mu'tamar in la qabto oo culimadii ay isugu yimaadaan shalay ma jiri jirin 2001kii wixii ka horreeyey ma jirin mu'tamaraadka maanta aad aragteen oo dhowrka kun oo qof ay ka soo qayb galayso wuxuu u mideeyey manaahijtii waxbarashada dugsiyadii inay midoobaan oo meel fiican maanta ay marayaan oo maqlaysid munadamaad dugsiyo isu tagay oo wax aan hore u jiri jirin inaad arkaysid macaahid diini ah sida macadka Abubakar As-Siddiq ee masaajidka Abubakar ka jira Minneapolis sida masaajidka Abubakar As-Siddiq Seattle Washington iyo sida masaajidka Ohio Columbus iyo masaajidda lamida dugsi macaahidda tarbawiga ah ee nidaamiga ee maanta soo kobcaya oo isku manhajka ah oo isku xiran oo iska warqabo oo mid walba midka kale uu ka dhaxula qaadanayo waxaan leenahay waxaas oo dhan waa fadliga Ilaahi tabaaraka wa ta'ala iyo juhdiga majliskaas waxaa majlisku sameeyaa waxaa ka mid ah oo kale inuu mujtamaca siiyo waxa la yiraahdo counseling family counseling iyo youth counseling inuu siiyo iyo qadaayaadka khilaafaadka inuu xalliyo kuwa qoyska kuwa ganacsiga ee tijaariga ah kuwa khilaafaadka dadka isqaba wax kasto ay noqoto maanta inuu noqdo marjiciyo ummadii ay ku tiirsanaato oo marka tagtay masaajidda kamida majlis raa'ima inta telefoon ku soo dhacays iyo inta qadiyada lagu xalinayo adiyaabaysi oo wax ilaahay lagu maatay tabaaraka wa ta'ala waxyaabaha uu qabto waxa kamida oo cajiibka ah oo maanta ay dhici karto meel kale caalamka inaad ku arkaynin inta masjid maanta jirta Mareykanka oo majlis raa'ima hoos timaado badankoodu waa masaajid la gaday oo miisaaniyad aad u badan ku fadhiya way masaajidaasi waxa gacanta ku haya hal majlis ah oo ka wada warqaba oo mid walba baahidiisa ka warqaba oo mid walba communitygiisa ka warqaba meel ay masaajid saa u midaysan yihiin way yarta waxa la yiraahdaa qofka muslimku kaliya wuu yar yahay laakiin walaalihii markuu ku dhex jiro wuu badan yahay jamaacadu waa khayr fardinimada iyo kali socodnimaduna waa shar way marka majlisku waxyaabo qabtay ka mid tahay waxa majlisku qabtay waxa ka mid ah ummadii muslimka ahayd ee Soomaaliga ahayd inuu u horkacay in la sameeyo isu tag masaajideed oo arway Mareykanka hadda intay ka gudubtay ayaa Yurub baa midowday masaajid waxa midowday Afrika ee South Africa hadda masaajid East Africa ayaa hadda sida ku socota wadamada dhan masaajid inay dalad noqdaan oo isu tagaan oo ay awood yeeshaan aad u badan oo maanta aad la yaabaysaan abaaraha Soomaaliya ka dhaca masaajidda dhan inta laga wada istaago maanta lacag laga aruuriya kaasa lacag aad u badan la aruuriya waxa dhacda dhibaato dad inay dhintaan culimo la dilo ay agoontooda caruurtoodii inta masaajidda dhan maanta looga wada istaago in wax looga aruuriyo oo la kabo oo wax la taro waxa dhacda in culimada qaar kood la xiro sida culimada waaweyn oo maanta xiran ilaahay xabsiga ka soo daayay inta masaajidda dhan laga istaago oo loo yar loo qabto oo lacag loo aruuriyo in la garab istaago waxaas shalay ma dhici jirin laajli dalika ayaa wuxuu xalliyaa majliska khilaafaad aad u fara badan mid maaragtay qoys mid ma taqaanay waxa weeyaan ganacsi iyo dadka maaragtay markay wax soo Soomaalida isqabto waxyaabahaas oo dhan ihsaayaadkii aan sameeynay 4 sano oo hadda la soo dhaafay majliska sanadka hadda dhamaadka oo December hadda aan ku dhex jirno 4 sano oo maaragtay ka dambeysay runtii taqriiban waxaan ku qiyaasnay ina majliska uu xaliyay kiisas ka dhaxdhacay ummadda Soomaaliyeed ama ha ahaado ganacsi iyo dad maaragtay shirkadaha ha ahaadeen sida xawaaladaha oo kale ama ha ahaado maaragtay mid family problem iyo maaragtay qoysas isqabtay taqriiban wuxuu maaragtay waxa weeyaan xaliyay oo maaragtay si khaas ah oo ama masaajid gobol ku yaala qaas ku ah ama mid uu soo gudbiyay ilaa 400 oo kiis taqriiban maaragtay waxa weeyaan ayaa sanadkii maaragtay waxa weeyaan ilaa 120
ilaa 400 inta u dhaxayso ayuu maaragtay runtii xaliyay oo maaragtay kiisaskaas maaragtay runtii uu xal ka gaaray majliska waxayna ku tusinaysaa maaragtay runtii ummaddu inay marjic iyo meel ay u soo noqoto runtii ay leedahay maraakiistaas iyo masaajidaas runtii uu hayo intaas oo boqolaal oo arday ah ayaa wax ku barato macaahid baa ka furan waxaas oo dhan runtii wuxuu ku yimid majliska isuukaankiisa iyo abaabulkiisa iyo maaragtay waxa weeyaan ijtimaaciisu ku yimid marka waxyaabaha runtii la taaban karo oo maantayto uu majliska xaliyay oo uu runtii maaragtay ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka muslimiinta oo Mareykan degan sifa caam ah ramadaanka soo galitaankiisa iyo maaragtay waxa weeyaan bixitaankiisa khilaafaad fara badan baa ka dhici jiray laakiin majliska wuxuu ku guuleystay arinta inuu mideeyo marka uu xaqiijiyo inay bisha ay dhalatay si sharci ah inuu u ilaamiyo dhammaan maraakiista iyo gobolada Mareykanka oo dhan marka ay dhamaato bisha in la yiraahdo bari waa ciid oo kale oo dadku ay noqdaan dad maaragtay culimadooda iyo manhajkooda maaragtay runtii ka dambeeyo oo maaragtay ka amar qaadanayo midnimadaasna waxa ay ku timid waxa weeyaan aasaaskii iyo maaragtay abaabulkii majliska iyo isukaankiisa weeye insha Allah ta'ala marka dadka muslimiinta ah waxaan runtii ugu yeereynaa in majliskaasi intaas oo maraakiis ah iyo intaas oo maaragtay umada isku hayo in laga qayb qaato sidii u sii balaaran lahaa sidii maaragtay waxa weeyaan u sii maaragtay dhameystiri lahaa ahdaafta iyo maaragtay waxa weeyaan wuxuu hiigsanayo lagu taageero si maaragtay waxa weeyaan maadi ah iyo si maaragtay waxa weeyaan amaliye aba loo taageero majliska insha Allah ta'ala ayadoo maaragtay runtii masaajid walba inta arday uu hayo iyo waxa uu hawl u hayo community-ga aad arki doontaan insha Allah ta'ala إليك السلاح أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد ويرفع رايتها من جديد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalyaal meeshaan waxa weeye masaajidkii Abu Bakr Siddiq Islamic Center waa masjidka ugu weyn ee Minneapolis North America yaala oo ay magaranaysaa ay maamulaan majlis aima masaajidkan isaga ahi waxa la dhisay 2006 horaantii waxa la gatay dabayaaqadii 2005 July kadibna meeshaan waxay ahaan jirtay warehouse qayb kamid waxay ahaan jirtay waxaan jidda warshad biraha lagu sameeyo masaajidka dayactirkiisii iyo sameyntiisii iyo gadashadii taqriiban waxay ku kacday 5 million waxa ku kacday $5 million US dollars marka insha Allah masaajidku waa markis weyn waxa ku yaala qaybo badan oo waxbarasho waxa ku yaala qaybta koro dugsi waxa ku yaala taqriiban ay dhigtaan arday 700 arday ah baa dhigta waxayna kala dhigtaan sabti axada qaarkood oo arday taxfiid ah waxay dhigtaan khamiis jimce sabti axad bay imaadaan sidoo kale waxa masaajidka ka furan hoostiisa oo magaranaysa 2011 laga aasaasay waxa laga aasaasay macad kulliyada shariica islaamiga dafcadii ugu horeysana waxay ka qalin jibeen last year taqriiban arday gaaraysa 200 arday haddana still waa sii kordhaya macadka galaasi cusub hadda loo sii dhisay oo weli hadda gacanta lagu hayaa oo aan la dhameystirin arday badan baa waiting isugu jirta macadka ardada dugsiga ka qalin jibisa waxa loo soo transfer gareeyaa macadka halkaas ay magaranaysaa tacliintooda shariica islaamiga iyo waxbarashadooda ay ka sii wataan sidoo kale masaajidka wuxuu qabtaa safsiin badan oo ummaddu u hayo waxa kamid ah salaadaha lagu tukado 5 salaadood salaadaha jimcada waxa ku yaala masaajidka qaybta dambe wearing hall oo lagu talagalay in xafladaha iyo aroosyada lagu qabto insha Allah hadii la yiraahdo inta square feet oo masaajidka baaxadiisu ay dhantahay waxa weeye
more than 90,000 feet square intaan hadda ka isticmaalana waa 30,000 feet square oo kaliya marka masaajidku wuxuu u baahan yahay wali waxaan u baahanahay dayactir fara badan almost 6,000 feet square baan hadda la isticmaalin oo wali qabyo ah oo u baahan ma garanaysaa in la dhiso oo la habeeyo insha Allah marka masaajidka waxaa toos oo la shaqeeya masaajidka waxaan toos oo la shaqeynaa ama aan ka hoos nimaanaa majlisa ima oo ma garanaysaa wax weyn dacwada North America u haya oo ma garanaysaa isku xirka ummadda muslimiinta iyo waxqabadkooda iyo baahidooda xagga dacwo ahaan iyo xagga ma garanaysaa tarbiya ahaanba qayb weyn ka qaata iyada la'aantoodna waxa weeye waxyaalo badan oo aan u baahanahay nooma qabsoomeen bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحن روا وربحين يرير إنا نكسيه مسجد الإحسان oo ku yaala magaalada St Paul Masjid al-Ihsan wuxuu aasaasmay bishii May 2007 waxaan ku bilownay meel yar oo kira ah alxamdulillah wax yar kadib runtii dadku aad u soo bateen masaajidka dugsiga waa qaadi waayay jumcooyinkii waa nagu yaraaday kadibna waxaan bilownay inaan iibsano dhismaha maanta aan joogno oo ku yaala Masjid al-Ihsan ilaah wuxuu noo fudeydiyay bishii December 2009 inaan buildingkan la soo wareegno buildingkan wuxuu ku fadhiyaa 22,000 square feet waa inta dhisan waxaa kale uu haystaa wax ka badan 100 baarkin alxamdulillah waxaan ku iibsanay lacag dhan 900,000 oo runtii markii la fiiriyo ay ahayd runtii uun fursad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala muslimiinta uu siiyay ninkii buildingka lahaa wuxuu ogolaaday Jikuba la yiraahdaa wuxuu ogolaaday in aan 200,000 aan down payment u siino 700 ee soo hadhana aan 7 sano siino marka sanadkiiba 100,000 inaan siino alxamdulillah arinta ilaa iyo hadda runtii maaragtay sidii bay ku socotaa wuxuu qayb ka yahay Masjid al-Ihsan bahaweynta maaragtay midowga masaajidda Soomaalida ee Mareykanka ee waqooyiga Amerika ayuu qayb ka yahay alxamdulillah since la bilaabay masaajidka qayb uu ka ahaa ilaa yawmina hada qayb ayuu ka yahay waana mid aanu aragno in maaragtay ay wanaag iyo horumar lagu gaari karo runtii waxaa laga yaabaa dad badan inaysan ku baraarugsaneen runtii nicmadan weyn oo faraha badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo galay waxyaabaha runtii maantayto hadda marka la isu geeyo 22kaas masaajid ilmaha dhigto ama ardayda dhigato ama dheerada youthka lagu hayo oo kale waxa weeyaan kumanaan kunba inta kor u dhaafayaan taqriiban dadka dheerada amaantayto bal qof kasto aqli leh bal dib maskaxdiisa u fiiriyo dadka maantayto oo aan loo haynin masaajid iyo maraakista maantayto aan loo haynin muxuu ku dambeyn lahaa masiirkoodii hadda tusaale ahaan gobolkan Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis oo Soomaalida u badan tahay waad ogtii maalin walba waxa ka dhaco dilal baa ka dhaco ilaa hadda waxaan garanayaa dhowr kiilood la soo dhaafay ilaa 8 dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilay oo ilaa hadda hal qof xataa aan loo xirin qaarkood intaas waxa weeyaan booliiska waliba wuxuu tilmaamayaa ama hay'adaha dabagalka ay ishaarayaan inta badan dilalkaasi in lagu tuumayo dad Soomaaliyeed lagu tuumayo dheer kala Soomaaliyeed in lagu tuumayo marka bal ka waran marka maantayto runtii intaas oo kumanaan arday ah maanta youth iyo maaragtay programadaas hawlaha masaajidda ka socdo haddii aan loo hayn lahayn oo banaanka ama streetka ayna ay taagnaan lahaayeen maantayto sida uu yahay creamka iyo dhibaatada meesha waxa dhacayo maxaa u malaynayay maaragtay runtii uu ka sii ziyaadi lahaa
weli hol badan runtii noo taalo waana ku mashquulsanahay runtii waxyaabaha hadda aan aadka bariyahan ugu mashquulsanahay waxa kamid ah inaan sii xoojino in xabsiyada la tago dhalinyarada street ka taagan in la soo kaxeeyo runtii wax badan runtii loo aqli celiyo iyadoo waliba laga ilaalinayo sidoo kale fikradaha xag jirka ah oo aad u sii maartay waxa weeyaan fog oo in badan aanan shughul ku lahayn shariicada iyo manhajka saxiixa aan shughul ku lahayn marka arrimahaas oo runtii qofka wax garanaya uu dareemayaa muhiimadda maraakiistan runtii ay leedahay waliba dadkan qurbaha ay u leedahay in marka la sii ballaariyo waliba waxaan leenahay runtii majliska runtii wax uu qabtay ama uu maartay sameeyay wali la isma gaarin waxa baahida taalo iyo hawsha taalo intaas oo dhan ay celinayaan ama ay xakameynayaan imkaaniyaadka ayaa runtii maartay hawsha weyn oo culus baa noo taalo waa in marka arinta ayada insha Allah taala lagu dadaalo oo aan jiddi insha Allah taala isugu geyno sidii aan ku badbaadin lahayn da'yartanada annaga wadanka ugu badbaadi lahayn wadankan waa joognaa waan soo degnay noqoshana ma jirto wal xaq yuqaal marka seen ugu noolaana Mareykan annagoo islaam oo diintanada haysano oo dhalinyaradanadii iyo dadkanagii oo dhanba maartay manhajka dariiqa toosnaa maartay waxa weeyaan ku taagan waana midda uu u saacinayo majliska lana rabo dadka muslimiinta inay ku taageeraan arrinka asaga ah maanta wuxuu marayaa 20 masaajid masaajidka runtii ugu yar baan wuxuu ku fadhiyaa lacag gaaraysa taqriiban 600 oo kun oo lacagta Mareykanka ah masaajidda hadda minbarka ka ah oo 20 ka aanu tilmaamayno waxa kamid ah masaajidka Abu Bakar Sadiq Minneapolis oo ah runtii centerka ugu weyn gobolka Minneapolis oo Soomaalidu ay leedahay ardaydiisa dugsiga Quraanka kaliya 800 ilaa 1000 arday buu hayaa intaasoo dafco ayaa ka qalin jibisay oo Quraanka Ilaahay ku xifdisay macadka ka furan taqriiban dafcadii labaad baa hadda baranayso maartay ku jirto labadii sanaba maartay dafca ka qalin jibiso iyo hawlaha faraha badan ee uu hayo waxa kamid ah masjidka Ibn Taymiyyah Columbus oo sheekh maartay waxa weeyaan imaamku ka yahay Sheekh Adam oo runtii masaajid weyn ah caruurta joogto iyo dugsiga iyo maartay runtii dad aragto ay xataa oo fakroorna ay noqdeen waxa kamid ah masaajidka Islamic Center of Kansas Missouri waxa kamid ah masaajidka Abu Bakar Islamic Center Seattle Washington oo runtii aad aragteen weyninkiisa iyo inta maartay uu ku fadhiyo iyo ardayda sidoo kale ka qalin jibisay isaga naftiisa oo in badan aad media ka daawateen waxa kamid ah Masjid Sunnah oo ku yaalo Atlanta Georgia ku yaalo waxa kamid ah masaajidka Masjid Faaruq oo ku yaala maartay waxa weeyaan Nashville Tennessee waxa kamid ah Masjid Al-Ansar oo San Diego ku yaalo Allah soo daayo imaamku uu ka ahaa Sheekh Maxamed Qadar hada xiran hadana Sheekh Qadar uu joogo waxa kamid ah Boston Islamic Center Massachusetts waxa kamid ah Masjid Islamic Center Lewiston Maine waxa kamid ah Masjid Bilal Maine Portland magaalada la yiraahdo waxa kamid ah Masjid Ar-Rahma Phoenix Arizona waxa kamid ah Masjid Islamic Center Omaha Nebraska waxa kamid ah Masjid Al-Ihsan oo ku yaala Sambol Minnesota waxa kamid ah sidoo kale Masjid Al-Huda Salt Lake City Al-Huda Islamic Center oo ku yaala Salt Lake City magaalada Salt Lake City gobolka Utah waxa kamid ah Masjid Ar-Rahma Awatana magaalada la yiraahdo oo Minneapolis kamid ah Minnesota kamid ah leeyahay state-ka waxa kamid ah Rochester Islamic Center oo asna maartay Rochester ku yaalo oo asna Minnesota kamid ah waxa kamid ah Masjid Irshad Islamic Center Eden Prairie waxa kamid ah Masjid Baron Islamic Center oo ku yaala Wisconsin waxa kamid ah Masjid Abu Huraira oo Ohio ku yaala Columbus sidoo kale waxa kamid ah Masjid Al-Bilal Center oo asna ku yaala Kentucky magaalada Louisville